safiirro dhowr ah oo kala matalaya dalal kala duwan ayaa laba maalin ka hor waxaa qaabilay boqorka dalka Morocco, boqor Maxamedka lixaad. Safiiradan waxay ka kala socdeen dalal ku yaala qaaradaha Afrika, Yurub, Aasiya iyo Ameerika. waxaana ka mid ahaa safiirka dalkeena Soomaaliya ee dhawaan loo magacaabay inuu ka howlgalo magaalada Rabat ee caasimadda dalka Morocco. Sida borotokoolku uu yahay, safiirada waxay mid ay u hor imaanayaan boqorka dalkaasi hogaaminaya si uu ugu gudoomo warqadahooda aqoonsiga. laakiin arinta la yaab kale ee meesha ka dhacday waxay ahayd Soomaali oo dhan ah ay si weyn u hadalhayeen in safiirka cusub ee Soomaaliya ee kamid ahaa safiiradii uu qaabilay boqorka dalkaasi uu sameeyay wax aysan sameeynin dhammaan safiirada kale. laakiin marka hore aan wax yar idinkaga sheego qaabka borotokool ee boqortooyada ama boqorka dalkaasi Morocco uu qaabilo madaxda kale ee caalamka iyo wafuudda soo booqata. caadiyan boqorka dalka Morocco marka uu qaabilayo wafuud ama uu ka soo baxayo dhismaha qasrigiisa waa in loo sameeyaa sidan. sidoo kale boqorka dalka Morocco waxa uu soo baxa dhammaan dadka degan gobolada dalkaas oo dhan waxayna sameeyaan sidan. laakiin xilligan casriga ka hor sheekada tan way ka darneed oo xitaa heer sujuud ayay gaari jirtay, subxaanallah. haddaba inta badan wafuudda iyo safiirada dalalka caalamka marka ay la kulmaan boqorka dalkan waa inay sidaani ay sameeyaan iyagoo madaxooda hoos aadinaya. waxaase xiise gaara lahaa aadna u qabsatay baraha bulshada ee dalalka carabta iyo Soomaaliyaba, inkastoo Soomaalida Twitterka aysan ku badnayn, in safiirka cusub ee Soomaaliya uu diiday inuu sidaan uu sameeyo, waxaana uu muujiyay kaliya ixtiraam iyo inuu qalbiga ka salaamay. ku darso qaar ka mid ah safiirada waxay ka tirsanaayeen boqortooyinka dalalka carabta sida Qatar, Imaaraadka Carabta iyo kuwa kale, waxaana ka mid ah safiirada uu qaabilay kuwa reer galbeed ah iyo kuwa bariga ah sida Japan iyo Ruushka iyo dalal kale. intaasi oo kaliya ma aysan waxyaabaha la yaab kale uu sameeyay safiirka Soomaaliya. sidoo kale wuxuu ku soo labistay dharka hidaha iyo dhaqankeena. haddii aan ku bilowno marka safiirka koowaad ee uu boqorka qaabilay warqadiisa aqoonsigan uu ka jawaabay sida aad muuqaalka ka arki kartaan waa safiirka dalka Denmark, xubin wuxuu ka yahay isbahaysiga gaashaanbuurta NATO iyo midowga Yurub. ninkan waa nin aan islaam ahayn, wax kasta inuu sameeyana waa ka suuragal. muuqaalkanina waa safiirka dalka boqortooyada Qatar oo xubin ka ah jaamacadda Carabta iyo dalalka Khaliijka. sidan ayuu sameeyay si looga gudoomo warqadaha aqoonsiga ee safiirnimo. kani waa safiirka Colombia, isna wuxuu ka mid yahay safiiradii uu qaabilay boqorka dalka Morocco. sidan ayuu ku celceliyay laba mar ma ahan hal mar ma ahan ilaa iyo 3 jeer waliba. muuqaalkanina waa markii boqorka warqadaha aqoonsiga ku gadoomayay safiirka dalka inuu walaalaha nahay ee Djibouti. kanina waa safiirka boqortooyada dalka Japan. sidaad u jeedaan ilaa iyo 3 jeer ayuu sidan sameeyay si looga gudoomo warqadaha safiirnimo. kanina waa safiirka dalka Jarmalka, markiisa ayuu isna gashanayaa wixii dadkii ka horeeyay ay sameeyeen. waxaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalka safiirka Soomaaliya Salaad Cali Ibrahim oo si ka duwan sidii hore ama sidii ay safiiradii hore ay sameeyeen ayuu sameeyay ninkan. waana arrinta si weyn loo hadalhayay maadaama xitaa dalalka islaamka laga doonayay inay sameeyaan sida ugu wanaagsan. maxaad ku kordhin lahayd qaybta aragtidaada ku reeb, waad mahadsantahay.